السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبي قليل كسر وهذا مركز علم التك يوتيوب هذا كحد بس سبسكرايب ده هدانا شوف تنسي شوف فيديو قال لك ده شيرنا ده كومنت وركتنا صاحب اسكو نقول انا صاحبي قاليga فيديو انا maanta waxa ku saabsan yahay waa Audacity waxa la yiraahdaa software-kan waxa loo isticmaalaa in lagu duubo broadcast-yaasha ama sidoo kale markii aad duubaysid cod bila muuqaal ah. example dadka idaacadaha oo joogan oo kale markay wararka diyaarinayaan oo kale markii barnaamij documentary aad diyaarinayso sidoo kale oo san markaas aan loo baahnayn in wajigaada muuqdo. dadka qaar waxa jira sidoo kale aan u baahnayn in wajigooda soo muujiyaan laakiin fikrado badan haya waxyaabo badan raba inay soo gudbiyaan markaas maqal ahaan ku soo gudbiyaan. hadaba Audacity waa application-ka ama software-ka ugu habboon ee markaas lagu duubo cod maqal ah oo bila muuqaal ah. hadda video-gan dhammaadkiisa waxaad ku fahmi doontaa qaabka lagu soo dago Audacity, qaabka markaas codka looga qaado background noise-ka ama qaylada gadaale, sidoo kalena codkaaga looga dhigo cod miisaan leh oo ah cod qof wax yaqaani oo soo duubay. hadaba soo qaada computer-kaada asla bilawno. hadaba si aad soo degsatid software-ka meeshan search-ka waxaad ku qori doontaa markaas website-kiga toos u aadaysa ka bacdina waxa ku soo bixi doona website markuu soo baxo waxa ku dhufanaysa meeshan computer ay ku qoran tahay software ayaa tagaysa markaas. software marka tagtina waa kana Audacity halkan waa ku jira. ka bacdi hoos waxa ku qoran meel ay ku qoran tahay download kaas ayaa ku dhufanaysa. ka bacdi meeshan ay ku geynaya midaan ugu koreysa ayaad ku dhufanaysaa. ka bacdi xaggan kore waxa ka arki doontaa in uu download gareysmayo markaas daqiiqada yar ay qaadanaysaa internet-ka ay ku xiran tahay. wuu isoo download gareysmayo wuu isoo degay. ka bacdi waan furayaa habka ayaan furayaa. ka bacdina laba goor ayaan ku dhufanayaa dhag ayaan siinayaa. ka bacdi yes ayaan dhahayaa. okay aad dhahaysaa. next install ugu doomarnaysaa. hadda uu ku soo galay. si aan ugu bilowno saaxiibayaal waxaad soo qaadataa markaas microphone-kii ama earphone-kii markaas wax ku duubi rabti. hadda doonto waxaad soo qaadan kartaa dhagaha yarka oo ku yimaado markaas Samsung ku yimaado iska isticmaali kartaa. marka waxa la soo qaada microphone ahaan soo qaado iyo dhago ahaan markaas aad isticmaalaysid. hadaba marka waxaan ku bilaabaynaa Audacity aan soo kicinayaa. Audacity markaan soo kiciyo sidaan soo baxo waxaan tagayaa meeshan ay ku qoran tahay edit. qaybta ugu hooseysa ayaan tagayaa ay ku qoran tahay preface. ka bacdina waxaan dooranayaa microphone-ka aan wax ku duubayo. labadan qaybood ayaad markaas dooran doontaa. playback mid ay ku qoran tahay waad galaysaa. ka bacdina microphone-ka ayaa dooranaysaa markaas ama waxaad dooranaysaa speaker-ka samaacadda oo laptop-kaada si markaas codka duubta u dhageysid. taas waa taas. aniga waxaan doortay earphone-ka dhagaha igu jira ayaan doortay oo magaciisa waxa la dhahaa USB. sidoo kale microphone-ka ayaa dooran kartaa wax ku duubi lahayd recording soo muujidid recording device wax lagu duubay. asagana waxaan doortay USB marka aniga microphone-kayga iyo dhagahayga weeyaan. marka adiguna oo dooro kuwaaga. okay then markii aad doonaysid wax duubtid xaggaas ayaa tagaysaa record ay ku qoran tahay. hadda ayaan cod tijaabo duubaynaa. marka codkani waa codkaan ugu talagalnay si aan u ogaano qaabka markaas looga saaro background noise-ka codkana loo qurxiyo Audacity. xaggaas ayaad marka joojinaysaa meeshaas stop ayaa ku qoran. codkii aad dib u dhageysanaysaa waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay play. codkani waa codkaan ugu talagalnay si aan u ogaano qaabka markaas looga saaro background noise-ka codkana loo qurxiyo Audacity. waxaan sameynaynaa marka ugu horeysa waxaan ku sameynaynaa wax la yiraahdo normalize. waan wada highlight gareynaynaa ama waxaad sameyn kartaa computer-kaada waxaad taaban kartaa control A wada highlight gareysmaya effect ayaan tagaynaa. بعد waxaan tagaynaa meeshan ay ku qoran tahay volume and compression. بعد waxaan tagaynaa normalize midaan kore ayaan ku dhufanaynaa. بعد waxaan dhahaynaa apply. waan dhageysanaynaa. codkani waa codkaan ugu talagalnay si aan u ogaano qaabka markaas looga saaro background noise-ka codkana loo qurxiyo Audacity. hadda waxaan sameynay cod qurxin ayaan ka wadnay macna background noise ma aanan aadin. marka wali cod qurxinta ayaan ku jirnaa. waxaa highlight gareynaynaa mar walba double click ayaa taabanaysaa ama control A. effect ayaan ku laabanaynaa. wali waxaan guudi jirnaa cod qurxintii
tan ayaan tagaynaa marka ay ku qoran tahay delay and refab qaybta hoose ayaan tagayaa refabta ka bacdi waan ku dhufanayaa qaabkan ayaa soo baxayo meeshan ay ku qoran tahay present and macnaha aan setting aad ku dhufanaysaa present and resetting factory present ka bacdi waxaan tagaynaa meesha ay ku qoran tahay faculty 1 ayaan ku dhuftay adigu haddaad doontid kuwaan mid mar waa tijaabi kartaa marba codku nooc ayuu isku bedelayaa marka midka doonto waa tijaabi kartaa laakiin 1 ayaan qaadanayaa midkan koobaad ayaan qaadanayaa ka bacdi meeshan 70 ayaan waxaan ka dhigayaa 20 middan kalena 20 ayaan ka dhigayaa ama 19 meelahaas 20 ayaan ka dhigay 20 ayaan ka dhigay kaas iyo kan ayaan wax ka bedelin inta kale waxba kama bedelin adiguna waa iska bedeli kartaa oo mar walba bedeshid meeshaas ayaa taaba kartaa review ka socodka dib u dhageysan kartaa apply ayaan dhahayaa markaas waan ku dhufanayaa codkii dib ayaan dhageysanayaa codkani waa codka aan u talagalnay si aan u ogaano qaabka markaas looga saaro background noise-ka codkana loo qurxiyo Audacity هذا هو isbedel weyn ayaa muuqda marka background noise-ka ayaan ka saaraynaa background noise-ka marka ka saaraysid waxaad highlight garanaysaa meel yar oo banaan sida meeshaas oo kale ama meeshan kale oo dhexdhexda oo kale lama rabo inaad eegan aadid intaas ayaa la rabaa inaad highlight garaysid ka bacdi waxaan tagayaa effect intii highlight garaysan waa u jeedaa dhan maanan highlightin inta sirta ayaan highlight garayay marka qaybta sirta saas highlight garanaya ka bacdi waxaan tagayaa effect waxaan raadinayaa wax la yiraahdo noise removal and repair ka bacdi hoos ayaan aadayaa noise reduction ka bacdi get noise profile halkaas markay joogto waxa dhan ayaan highlight garanayaa control A ayaan taabtay control A ka bacdi waxaan tagayaa effects ka bacdi waxaan taabanayaa meeshan ay ku qoran tahay repeat noise reduction adigu ujeedid ayuu dhag dhahay dhageysa marka codkani waa codka aan u talagalnay si aan u ogaano qaabka markaas looga saaro background noise-ka codkana loo qurxiyo Audacity halkaas markay ku marayso waad haysataa codkaagii cod nadiif ah haysataa ka bacdi waxaad samaynaysaa meeshan ayaa tagaysaa ay ku qoran tahay file si aad u save garaysatid ka bacdi waxaad tagaysaa export audio ayaa dhahaysaa meeshan ayaad markaas imaanaysaa waxaad soo dooranaysaa meeshaad wax ku save garaysanaysaa xagga ku save garaysanaysaa marka browser ayaa taabanaysaa ka bacdi meesha doontid ayaa taaban kartaa oo meeshii oo flash ama meeshii aad rabtay iska toogan taabanaya ka bacdina okay ayaan dhahayaa magac waa ula bixi kartaa meeshan kore meesha dhan oo muhiimka waxa weeyaan formatka hortiisa waa inay ku ahaataa mp3 waa inay ku ahaato marka intaas weeyaan marka muhiimadda ka bacdina export ayaa dhahaysaa sidaas ayuu kugu save garaysaa markaas barnaamijkii aan duubnay waa kana marka halkan ayuu noogu jiraa codkani waa codka aan u talagalnay si aan u ogaano qaabka markaas looga saaro background noise-ka codkana loo qurxiyo waan filayaa saaxiibayaal inaad waxun ka faa'iideen haddii aad wax ka faa'iido la sii wadaag saaxiibadaada si ayagana wax uga faa'iidaan intaan fiidiyoga waxa kulmi doona saaxiibayaal waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh